السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hoyga dhiirane English Learning Funnies qaybtiisa YouTube-ka. haddaba luuqadda Ingiriisiga ku baro si fudud adoo naqla soconay barnaamijyada kala duwan aan daily u soo dhigno barteena YouTube-ka sida conversational practice wada sheekaysi mowduucyo iyo barnaamijyo kala duwan oo luuqadda Ingiriisiga lagu barto. haddaba subscribe noo saar haddii aad hore noogu saarneed qalbiga ka ogsooni Allah ku sharfo. sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad share-ta iyo like-ta aad la dhacdo si uu fiidiyogani dad badan u gaadho isla markaana ka faa'iideysta. anigoo Cabdisaam Muuse Axmed Cabdisaam Dhiirane waa noo muhiim inaad noogu soo birto sidoo kale aad qurxiso fiidiyowga. insha Allah maanta waxaynu bilaabi doonaa topic about mothers mowduuc ku saabsan hooyooyinka. topic about mothers mowduuc ku saabsan hooyooyinka. waayahay aan bilaabno. first and foremost ugu horeynba first and foremost ugu horeynba I am very pleased aad waxaan ugu faraxsanahay I am very pleased waxaan aad ugu faraxsanahay to talk about inaan ka hadlo about wax ku saabsan mothers hooyooyinka. to talk inaan ka hadlo about wax ku saabsan mothers hooyooyinka. but laakiin before I got into my topic kahor intaanan topicayga guda gelin but laakiin before I got into my topic kahor intaanan topicayga guda gelin amba aanan bilaabin I would like waxaan jeclaan lahaa to send inaan u diro to the dear mothers hooyooyinka qaaliga to send inaan u diro to the dear mothers hooyooyinka qaaliga a warm greeting salaan diiran which taasoo come from the most expensive parties qaybta ugu qaalisan of my body ee jirkayga qaybta ugu qaalisan jirkayga salaan ka timid. way second mar labaadka mothers duty waajibaadka hooyooyinku is uncountable oo qaar aan la tirin karin waa kuwa aan la tirin karin. from the day laga soo bilaabo maalintii she got pregnant ay uurka ay qaaday and up to now ilaa maanta mothers duty waajibaadka hooyooyinku is uncountable oo kuwa aan la tirin karin. from the day laga soo bilaabo maalintii she got pregnant ay uurka qaaday and up to now ilaa maanta she is unpaid maid servant for us waa shaqaale aan lacag naga qaadan. she iyadu is unpaid maid servant waa shaqaale aan lacag naga qaadan for us inaga and needs nothing shayna noogama baahna from us inaga and needs nothing shayna noogama baahna from us inaga except marka laga reebo respect qadarin and kindness in naxariis expect marka laga reebo respect qadarin and kindness in naxariis. yani wuxuu leeyahay hooyooyinku wax kale noogama baahna lacag naga qaadan maayaan wax kale naga dooni maayaan ee kaliya waxa waajib inaan u fulino xaquuq nagu leeyahay inaan adeecno inaan qadarino in naxariis aan tusno ayay nagu leeyahay. way juwan intii ay ku guda jirtay her pregnancy uurka intay ku guda jirtay amba uurka intay qaaday she suffered so much dhibaato badan bay iyadu martay. she suffered waxay la dhibaatootay so much in badan bay la dhibaatootay. she suffered waxay la dhibaatootay so much in badan bay la dhibaatootay. she carried us waxay nagu qaaday in her womb uurjiifkeeda around in ku dhow 9 months 9 bilood around 9 months in ku dhow 9 bilood. afterwards intaa ka bacdi
she has delivered us wayna keentay she has delivered us wayna keentay breastfed us naaskay nagu dubtay breastfed us naaskay nagu dubtay for 2 years 2 sannadood oo xidhiidha breastfed us naaskay nagu dubtay for 2 years 2 sano and carry us waxay nagu qaaday and carry us waxay nagu qaaday on her back dhabarkeeda on her back dhabarkeeda at that time waqtigaas she did not sleep more in badan may seexan jirin she did not sleep more in badan may seexan jirin because maxaa yeelay of caring us inakayna daryeelaysay of caring us inakayna daryeelaysay and of course dabcanba our crime weytaankani la tacaalaysay she fed us wayna quudin jirtay she fed us wayna quudin jirtay and stand for us waanay noo heesi jirtay and stand for us waanay noo heesi jirtay she made us laugh waynaga qoslin jirtay she made us laugh waynaga qoslin jirtay and raised us well waxaanay si wanaagsan kor u qaadi jirtay physically muuqaalkeena and mentally iyo maskaxdeena she washed waxay maydhaa our dirty clothes dharkeena ustaga our dirty clothes dharkeena ustaga every hour waqti kasta a minute iyo minute kasta wuxuu leeyahay she washed waxay maydhaa our dirty clothes dharkeena ustaga every hour saacad kaste a minute iyo minute kasta to make my topic shorten waxa mawduucay ku soo gunaanadanayaa out here the world yada la'aanteed dunidu without her the world yada la'aanteed dunidu would not have existed may jirteen and would be dark waxaanay noqon lahayd and would be dark waxaanay noqon lahayd mugdi and would be waxaanay noqon lahayd dark mugdi haddaba sidoo kale waxaa nagula socon kartaa page aan ku leenahay maanta intaasay nagu joogi doontaa sidoo kale waxaa nagala socon kartaa page-ka dhawaan aan furnay ee TikTok-ga adoo ku qori doona dhiirana English Learning Friends sidoo kale waxaan rajaynayaa in muuqaalkan qurxin doontaan share-ta iyo like-ta la dhaca anigoo Abdulsalam Muuse Axmed Abdisaadiirane aad baad u mahadsantihiin